ciidanka booliska Soomaaliland ayaa kulan warbaahineed ay ku qabteen xarunta taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa ay faahfaahin kaga bixiyeen arrimo kala duwan oo ay kaga hadleen kulan warbaahineedkoogaasi kuwaasi oo ay kamid ahaayeen jawaab ay ka bixiyeen wargeyska Foore ee uu soo jeediyay ciidanka booliska qabashada khamri tiro badan oo lagu qabtay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qabashada tuugo dhacday nin Masri ah oo magaalada Hargeysa ay kaga qaadeen lacag iyo baasabooro ugu horeyn taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliland Daahir Cali Wacays iyo afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi waxa ay ka hadleen jawaabna ka bixiyeen eedaha wargeyska Foore uu soo jeediyay ugu horeyn waxaan soo reysiinaynaa waxa dhacay saaka oo bisha 15 arrimo beena oo ruuxantii aan waxba ka jirin oo soo qoray joornaalka Foore ayaan la socodsiinaynaa dadweynaha oo sheegaynaa wax kaga sheegayo shaqada ciidanka booliska dadweynaha og wuxuu ugu sugan yahay ummadiisa iyo wuxuu qabto dadweynaha ka marqaatiya markastaba howlgalka iyo waxyaabaha uu sameeyo joornaalka ruuxantii Foore waxyaabaha uu soo qoray waa wax runtii xaqiiqada ka fog su'aalka Foore agada waxyaabaha uu soo qoray ee aanu ka hadalnay waa arkiisay deegta waxa weeye qofku wixii sharciga ah ee cadda inuu sheego waa waajib anigu saxaafadda kale ee Soomaaliland waanu mahad celinayna sababtoo ah xeerka saxaafadda way ku dhaqmaano arrimaha ciidamada waxba kama sheegaan agada way ku maadsiin waxa si ugu dambeynta xalan ka sheegaya waniga Foore la yiraahdo wuxuu shaqo ka dhigtay wuxuu caadaystay oo uu shaqo ka dhigtay agada inuu had iyo jeer waxaan jiri ka sheegay ciidanka booliska waxaan ka codsanaa xeelaalinta guud ee qaranka maxkamadda waxaan ka codsanaa waxa loo hayaa ilaa 6 kiis oo dambi ah oo faldambeer ciqaabeed ah oo ay galeen Foore agada waxaan ka codsanaa xeelaalinta iyo maxkamadda in dunuubtii ay galeen dambi ciqaabeed ba galeen nimanka Foore waxaan ka codsanaa xeelaalaha guud iyo maxkamadda gobolka waxaan ka codsanaa in dunuubtii hore ay galeen lagu qaado waxaan leenahay waa badaligoonti way sababtoo ah dunuubta lagu noqdo sharci bay leedahay mogti anagu ka dacwanaa waxa uu sheegay aan jirin imika waan soo dacwanaynaa kiiskiisa waa la baarayaa wixii ka soo baxana waxaan u gudbinaynaa xafiiska xeelaalaha guud iyo maxkamadda wadooda geesta kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliland gaashaan la sare Faysal Xiis Cilmi waxa uu ka hadlay qabashada khamriga ay qabteen ciidanka boolisku iyo sidoo kale eedeysanayaasha ay u hayaan nimanka burcada ah ee ka qaaday ninka Masriga ah alaabta uu sitay iyo lacagta iyo baasaboorada waxaanu xusay in ciidamada boolisku ay dhammaanba gacanta ku soo dhigeen eedeysanayaashaasi iyo wixii ay dhaceenba taariikhdu markay ahayd 3 bishii 8 goolay saacadu ahayd 7 habeenimo ayaa nin dhibana oo la yiraahdo Tasiim Axmed Muctadim oo 9 jir ah oo dhashiisu ay tahay Masaaray ayaa waxa halka gacan libaax agtiisa looga qaatay 2 moobil iyo lacag dhan $3,000 iyo 3,000 oo lacagta Masaarida ah iyo 150 dirham iyo baasabooro Masaari ah ciidanka booliisku markii warkaasi soo gaaray in tugadaas ay xadeen nimanka dhibanayaasha si balaalo bay howlgaleen nasiib wanaag waxay gacanta ku soo dhigeen labadii eedeysane ee falka galay oo kala ah Faysal Cabdi Tumow ina Saara Cabdullaahi 16 jir ah iyo Maxamed Maxamuud Aadan ina Caasha Ciise 3 jir ah dhammaan eedeysanayaashaasi waxay ku xidhayeen saldhigga booliska gacan libaax talabaad xalay oo bishu ahayd 14 bishii 9 goor saacadu ahayd 21 habeenimo ciidanka booliisku heegan sida ay ugu jireen waxay gacanta ku soo dhigeen mukhadiraad dhan 24 jirkaan oo khamri ah 69 litir oo jirka oo jiin ah darajin waxa loo yaqaan 8 xabo oo biir ah isugay khamrigaasi marka la eego waxa weeye 793 khamri ah wadinka arkaya hortiina ay yeelaan labada nin khamriga lagu soo qabtay dhalashadooda asal ahaan waxay ka soo jeedaan Itoobiya waxaan la kala yiraahdaa Cabdi Jibaar Saytuubo iyo Xamse Cabdi Ibro way ka galacsanayeen booliisku ku daba jireen nasiib wanaag markay warkii xaqiijiyeen war la helaa tala la helaa ay booliisku gacantooda ku soo dhigeen وحسن إسماعيل محمد warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa